aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay xubin ku yeelanaya baarlamaanka Pan Africa ee xaruntiisu tahay magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika kadib markii senator Professor Abdi Ismail Samatar loo dhaariyay ka mid noqoshada xubnaha baarlamaanka Pan Africa. I, Abdi Ismail Samatar, hereby swear solemnly declare that 1. I will perform my functions as a member of the Pan-African Parliament to the best of my ability and with honor and dignity in the service of the peoples of Africa. Senator Professor Abdi Ismail Samatar ayaa markii la dhaariyay kadib warbaahinta uga warbixiyay qaabkii loo aasaasay baarlamaanka Pan Africa iyo waxyaabihii looga hadlay kalfadhigan labaad ee baarlamaanka lixaad ee Pan Africa maadaama uu ka mid ahaa mudanayaashii ka qayb qaatay doodihii iyo ajendayaashii looga dooday. baarlamaanka Afrika waxa weeyaan baarlamaan dadka Afrikaanku ay soo doorteen ma aha. waa baarlamaan laga soo xulay xubnaha baarlamaanada wadamada Afrika ka kooban ee 54 ka ah. halkan baa la isugu yimaadaa sanadkii 2 jeer amuurahaas laga doodaa. sanadkan kow waxa ka ahaa arinta cimilada iyo sida la baayac mushtarka Afrika la isugu furi lahaa ee xuduudaha loo fududeyn lahaa sida dadka iyo buusharaduba uga talaabi lahaayeen. arinta Suudaan baa kamid ah iyo wixii la caanamaala nabadda iyo waxyaabo kale. marka meeshan waa baarlamaan cod lagu yeelan karo ummadda Afrika ina bari kara ay naga 30 sanadood inaga maqnayd iyo in ka badanba. waxa kale oo cajiib waxa weeyaan markii mesela hadaan tilmaam ku siiyo laga doodayay arrimaha maxay baac mushtarka dhaqaalaha iyo baac mushtarku waa kala laba. dhaqaaluhu waxa weeyaan wax soo saar baa ku jira, service baa ku jira, alaabtii la iibinaya baa ku jirta. baac mushtarku waxa weeyaan qof wax soo gatay waxna gadaya waay aan waxba soo saarin. marka waxyaabaha doodana dhex martay waxay ahayd war wax soo saarka ha laga hadlo intaan laga hadal isweydaarsiga. hadduna wax soo saar jirin de isweydaarsi iman maayo. marka waxaad moodaysaa sida doodu u socotay waayahanba hal isku furo la leeyahay. laakiin aanu waxaan ka qabaa shiki weyn baan ka qabaa in isku furkaasi kor u kac weyn uu keeni karo dhaqaalaha Afrika. dhaqaalahana waxa muhiim mesela tilmaam ku siiyo waxa kamid ah $50 bilyan ayaa cunto Afrika dibadda kaga soo iibsataa. Afrika biicadii way leedahay, biyihii way leedahay, dadkii way leedahay. $50 bilyan haddii laga maarmo $50 bilyan waxay abuuri doonaan malaayiin shaqo ay Afrikaan u abuuri doonaan. laakiin haddii la yiraahdo waxa la isweydaarsado wixiina xagu ka imanaya weeyaan la isweydaarsanaya. marka ma qoto dheer weli doodu halka maraysa. waxyaabahaas ayaa kamid ahaa wixii laga hadlay. baarlamaanka Pan Africa oo la aasaasay 2004 ayaa waxa ku midaysan 54 dal oo midkiiba uu 5 xubin oo iskugu jira labada aqal ee baarlamaanada wadan kasta u soo diro. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.